Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barteena halkan waxaad uga barataan waxyaabaha la xiriira wax kastoo la xiriira cilmiga caafimaadka khaasatan waxyaabaha la xiriira nolosha bini'aadamka ama life cycle-ka bini'aadamka maanta waxaan jeclahay inaan kusoo gudbiyo cashir aad iyo aad u qiimo badan oo aad ka wada bogan doontaan haddana la xiriira basiga nolosha bini'aadamka oo ah xilliga caruurnimada caruurtaada waxyaabaha la xiriira ee aan kusoo qaadan doono cashirka waxaa ka mid ah 10 qodob ama 10 shay oo aad lagaaga baahan yahay inaad caruurta ku badbaadiso ku badbaadi caruurtaada 10 shay oo aad sameyso ama 10 shay oo aad barto noloshooda sida aynu ognahay caruurta waxay nolosha bidaayiga ama bilowga ah kasoo koraan waxyaabo yaryar oo la xiriiro dhibaatooyin noloshooda soo mara hay-adda caruurta ee trust la yiraahdo ayaa sameysay liiska talooyin waalidiinta ay ugu diyaarinayso ama daryeel ahaan ay u siinayso ugana hadasho xirfadaha asaasiga ee badbaadada shakhsiyaadka caruurta ilmahaaga wax ku bar ama ugu dhaqaaq sida badan sidaad u bari lahayd xirfadaha nabadgelyada tusaale ahaan xirfadda traafikada qodobka ugu horeeya haddii aan soo qaato oo caruurta la xiriiro ama waxbaridda caruurta ama 10 shay oo aad ku kiib garayn karto oo ku xafidi karto caruurka waxa ugu horeeya qodobkaas wuxuu noqonayaa bar caruurtaada deganaan iyo kalsooni caruurtu waa inay bartaan taxadar feejignaan iyo u diyaar garow ma aha in la baro cabsi yar ma qabaan marka ay xirfad leeyihiin macluumaadka iyo kalsoonida ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan markay xirfad u leeyihiin cabsi ma qabaan caruurtu qodobka labaad bar oo u ogolaansho sii inay dhahaan maya una sheeg sababta cunuga u sharax farqiga u dhexeeya yaabka iyo sirta ku dheh hagaag ama okay la yaabka waxaa loogu talagalay waxyaabaha sida xalfadda ama hadiyadaha oo ay dadku ka farxiso sir maaha si dheh oo bar okay inuu ku yiraahdo sirtu waxay dadka ka dhigtaa inay dareemaan raaxo la'aan iyo amni darro u sheeg caruurta in haddii laga codsado inay qarsoodi ka dhigtaan taabashada inay dhihi karaan maya waxay raadin karaan ama ayna raadiyaan qofka weyn ay ku kalsoon yihiin oo ay u sheegaan wixii aysan ku qanacsanayn qodobka saddexaad wuxuu yahay caruurta ka caawi inay bartaan dadka waaweyn ee lagu kalsoon yahay caruurta ka caawi inay bartaan dadka waaweyn ee ay ku kalsoon yihiin si furan ugu sheeg cidda ilmuhu ama caruurtu cidda uu u tagayo xaaladda degdega marka ay timaado u sheeg tusaalooyinka gaarka ah sida qofka isticmaalayo diiwaanka lacagta ee suuqa hooyo caruur leh ama macalin intaas waxaa laga rabaa caruurta inaad u barto si khaasa si ay ula xiriiraan marka ay timaado xaalad degdeg ah bar oo u sheeg xuduudaha jirka caruurta ama cunugaaga bar sida loo sameeyo sohdimaha jirka tan waxay ku bilaaban kartaa adigoo markasta weydiisanaya ogolaansho ka hor isku duubitaanka ama gacmo isqabsashada u sheeg caruurta in xubnahooda gaarka ah ay yihiin qaybaha loogu daboolay dharka ama qubeyska qaybta dharka ee qubeyska intuusan qubeyska ka hor qaybta asturan ayaa loogu talagalay inay xuduudaha jirka ahaato oo taxadar uu ka qabo markii wax dareemo qofna waa inuusan taaban xubnahooda gaarka ah caruurta ama uusan weydiinin inay taabtaan xubnaha gaarka ah ee dadka kale qodobka shanaad wuxuu yahay bar caruurta habka saaxiibada caruurtu waa inay bartaan inay ahaadaan had iyo jeer kuwa ka ammaan badan tahay inay la joogaan saaxiibadood ama qof weyn oo lagu kalsoon yahay oo keligood ah haddaan u galno qodobka lixaad wuxuu yahay bar caruurta marka hore inay hubiyaan dadka kale bar caruurta inay hubiyaan dadka waaweyn ee lagu kalsoon yahay ka hor intaanad bedelin qorshahooda ama aadan meel aadin xitaa dadka waaweyn ee ay garanayaan bar oo kalsooni si ay naftooda u geliyaan qodobka toddobaad ee aan soo qaadanayno wuxuu yahay bar caruurta xirfadaha telefoonka bar cunugaaga lambarka telefoonkaaga gacanta iyo inaad u wacdo 911 ama 999 si caawimaad ah haddii xaalad degdeg ah timaado ama ay qabsato qodobka sideedaad ee aan kusoo qaadanayno darsigeena maanta wuxuu yahay doorka ciyaarista caruurta sida aysan caruurtu u baran inay raacaan baaskiilka markay hadlayaan ma bartaan mana fahmaan xirfadaha badbaadada iyaga oo aan ku celcelin waayo
wax kastoo lagu celceliyo ayaa la bartaa lana fahmaa. Caruurkuna wuxuu aad u fahmayaa wixii uu ku celceliyo. Caruurtu waxay wax badan ku bartaan waxqabad iyo celcelin. Waxay u baahan yihiin inay door ka ciyaaraan oo ay arkaan sida ay dareemayaan marka la yiraahdo maya xaaladda adag. Qodobka 9aad aynu soo qaadanayno wuxuu yahay ka mid ah 10 qodob ee aad ku badbaadin karto caruurtaada. Bar dib u eegis iyo ku celcelin. Caruurtu waxay u baahan yihiin inay dib u eegaan markasta xirfadaha badbaadada. Cilmi baaris ayaa muujisay in xirfadahan loo baahan yahay in la baro 5 ilaa 10 jeer sanadkiiba. Dib u eeg caruurta inta lagu guda jiro wadida gawaarida iyo daqiiqadaha kale ee aad wada joogtaan. Oo caruurta dib u eeg markasta oo aad ku jirto xaaladaha aad mashquulka tahay, sida marka aad gaariga kaxeyneyso iyo xataa sida guud daqiiqadaha kasta ee aad wada joogtaan ee ku sugantihiin meelaha fagaaraha ah ama meelaha khaaska ah. Qodobka 5aad aynu kusoo qaadanayno ahna qodobka ugu dambeeya ee aad ku ilaalin karto ama ku badbaadin karto caruurtaada waxay tahay ku adkayso tababarka ka hortagga xadgudubka waxyeelada loo geysto caruurta xilliga iskuulka ama xilliga dugsiga. Barnaamijyada lagu qabto iskuulada sida barnaamijyada badbaadinta caruurta oo ay bixiso hay'adda caruurta qaabilsan waxay siisaa waalidiinta iyo shaqaalaha fursado habaysan oo ay ku bartaan xirfadaha iyo barashada macluumaad ku saabsan ka hortagga waxyeelooyinka. Hubso inaad dugsiga ilmahaagu ay dhigtaan uu bixiyo barnaamijyadaas. Haddii uu bixiyo barnaamijyadaas, waxaad ka baran kartaa ama aadan ka ogaa kartaa barnaamijyada loo qabto waxyeelada soo gaarto caruurta xilliga dugsiyada. Intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo casharkii la xiriiray 10 qodob oo aad ku xifdin karto ama ku ilaalin karto mustaqbalka caruurtaada. Aadna uga ilaalin karto waxyaabo kasta oo khataraha soo gaari lahaa caruurta. Haddii aad barto caruurta 10kaas qodob, waxaan rajaynayaa inaad wax badan noloshooda ka bedeli doonto. Daawade ama dhageysto, waa mahadsantahay sida aad ula socoto barnaamijkan. Fadlan ha iloobin inaad subscribe saarto channelka, like iyo share-na aadan ka hilmaamin. Waad ku mahadsantahay kun jeer sida aad noola socoto.